هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله يقول حرن ما شاء الله والسلام يا سلام كبعدي ولا ليالو ضد أنا محي هي تولي أنا لهين مرجع النقدان مرجع ضدكم مركي لهين مرجع النقدان وحقونا سوا ultimately waxa loo yaqaan ultimately solution oo qofku marka uu maxay haytoolay xal waayo oo maragtay constitution kala waxa jira dawladaha reer galbeedka waxa la yiraahdo ultimately solution waxa la yiraahdaa jirta oo uu marjac loo noqdo hadduu xeer jajab ahaa hadduu xeer qabiil ahaa hadduu bahalki ahaa horta umadan lahayn ma noolaan karto runtaan idin sheegaya marka wax badan ma rabo inaan ku sii fogaado ama qof magaciisa aan sheego ama personal attack day arka ma rabo laakiin waxaan rabnaa aqligeenu fiyo dadnimadeena anagoo kaashanayna islaamnimada anagoo kaashanayna waxa loo baahan yahay aqli wax lagu wadi karo inaan la nimaado haddii kale waxa weeyaan waxaan noqonaynaa qofkii mididiisa isu dhiibay oo lagu gowracay ma garateen haddaad adoo lagu dil rabo aad inta isu soo gunaanido midina aad keensato dhibaatadeeda leedahay waxaan ka hadlaayo dadka qaar ma fahmi karaan because dadka qaar waxa inaad u sharaxdo oo tiraahdo saan ay tahay ay rabo u baahan yihiin time u baahan yihiin laakiin waxaan ka hadlaayo dadka qaar unbaa fahmi kara waxaan rabaa marka walaalayaal dib aan iskugu laabano marjac iyo meel loo noqdo aan yeelano waxyaalaha qaar magaalada muqdisho iga soo gaarayo waxyaala fiican maahan qalbiga uma roono dhagaha uma roono dadnimada uma roono sharafka uma roono waxaan idin sheegayaa ummaddu waxay ummad ku ahaan kartaa oo ku sii jirin kartaa markay dhexdooda ixtiraamto maantana waa sheegay mar kalena waa idinkugu celinaya walaalayaalow intaad isyasaysaan oo ninka kale uu iskala ka weyn yahay oona hoos u fiirinayn oona walaalkiis maxay kula tahay oona dhahayn dadka kaleba waa ixtiraamtaa laakiin walaalka hadduu kaa fikir duwan yahay inaad dhegaysato adaa lagaa rabaa hadduu kugu fikir yahay inaad ixtiraamto adaa lagaa rabaa laakiin haddaad tirahdid walaalkay ma ixtiraamayo reeraha islaameedna waa ixtiraamaya walaalkay ma dhegaysanayo dadka kalena waa dhegaysanayaa suurtagali mayso walaalka inuu cadow u shaqeeyo inuu laaluush qaato noqdo adaa ku kalifaya ha kalifin haddaad adiga dhegaysan weydo oo la tashan weyday oo waxba ka qayb gelin weyday oo sharafkiisa weydiin weyday oo fikirkiisa weydiin weyday asaga wuxuu ku qasban yahay soo isku soo saari lahay shakhsidiisa inuu ka shaqeeyo ma garata marka walaalka adaa wax ka dhigi kara walaalkaabaa wax ku tahay ma fahanta walaalkaana wax waa ka dhigi kartaa asna waxbuu kaa dhigi karaa waa laakiin goormo waa markaad la tashato markaad sharaf u yeesho qofka aad qiimayso goormaa qiimaysa qofka markaad tala weydiiso waa qiimaysa markaad la tashato waa qiimaysa markaad muujiso wanaagiisa waad qiimaysa laakiin walaalkaa markaad ka sii jeesatid oo duud ka xijisid ood ka tagtid oo markuu hadla aad tirahdid waxaani wax jira maahan hadal ma yaqaano even hadduuna aqoonin isku qasab wuxuu doona ha ku yiraahdo ha ku caayo soo raba ha ku yiraahdo macnihii bila aadan lama qancin karo laakiin ilaa xad u dulqaado ma garata ilaa xad u dulqaado laakiin been idii sheegi maayo haddaad walaalkaaga ka tagto oo aad qowmiyad kale ka doorato walaalkaana wuxuu ka shaqaynayaa luqaafadaadu ka shaqaynayaa wuxuu ka shaqaynayaa sow asagu dad u noqon lahaa ma garata because ku fikiri maayo inaad wax u ogoshahay wuxuu og yahay inaadna waxba u ogolayn wuxuu og yahay inaad nolosha kala dagaalantay
wuxuu og yahay macnaheedu tole inaan agtaada aadna oona sharaf ku lahayn marka wuxuu raadsanayaa jaajuusnimaba ha ka gasho hadday doonto dowlado shisheeye ha ka gasho hadday doonto qabiilo kale ha ka gasho laakiin wuxuu falkeeda galayaa walaalkaa markaa yeesto ood wejiga ka dadabto ood hoos u fiiriso oo tiraahdo wax jira maahan aad tiraahdo wuxuu raadinayaa isagana wadadii oo kusoo bixi lahaa oo kugula tartami lahaa oo kula mid noqon lahaa oo magaca aad haysato oo ku yeelan lahaa si ayna taas u dhicin marka waxa lagaaga baahan yahay walaalkaa intuu ku ogol yahay inaad dhegaysato wax weydiiso tala weydiisato tusaale weydiisato garabkaaga ka daydo waxa la yidhi walaalka gadaashaadana lagama fiirsho hortaadana lagama fiirsho laakiin garabkaada laga fiirsha ma fahanteen waxaan la hadlayo bal maanta waxaan isku dayaa inaan sarbeeb u hadlo wax badan baan hadal qabyaaladeysan sheegay wax badan baan dadka toos wax ugu sheegay laakiin maanta waxaan isku dayayaa caawa inaan bal si oo bal ilbax xadaarad leh inaan wax idinku sheego marka ilma adeerayaalow walaaladiin hoos u fiirsha waxaa leeyahay qoomkii isqoomsadaa qoom kaloo qoryaha u gura waana xaqiiqa waay haddaad walaalkaa ku digato oodna tala weydiisan ood yasto wax xaqiiqa asagana uu ku yasayaa wax xaqiiqa inuu wax raadsanayo waxa xaqiiqa inuu falankeeda galayo meeshuu wax ka heli lahaa marka walaalayaal waxaan idin sheegayaa dadnimadu ha shaqayso garashadu ha shaqayso aqligeenu ha dhaafo waxyaalaha qaar aqligeenu ha dhaafo hoos inaan iskugu soo laabano inaan meydka adduunka waxa ugu xun qofkii meyd qof dhintay maxay yahay toolay ka cuna ama mara ka siibta mara kala baxa karfanta meydka yaana lagala bixin reer tolkayow maanta waa idinla talinayaa waxaan ahay nin dhalinyaro ah mustaqbal badan baan leeyahay waxaan mustaqbalkayga ama waqtiga aan idinkugu hurayo hanti idinkama rabo xoolo idinkama rabo madaxtinimo idinkama rabo laakiin waxaan rabaa inaad wax noqotaan dad jiro oo aniga waxaan ku farxayaa markaad adika xaqiini xaquuqdiini soo dhacsataan marka gabadha ina adeertayda ay amni ku noolaato cadaalad ay heli karto sharaf ay ku noolaan karto jidad laga xirayn gurigeeda si nabada u dhisan karto markaas way marka aan farxayo waxa weeyaan marka aad caruurtiina dadkiina qurba joogta aad wadankii kula laaban kartaan oo ku soo dalxiisi kartaan oo samar baad aadaane Dubai iyo meel kale aadaane aad wadankiina ku laabataan ehelkiina la soo joogtaan isu soo xog wareysataan adiko ku daashoonayo si amni ah laakiin meel laga kala guuray oo maalin walba la isku dilayo oo jid la mari karin oo qarxu tubay yahay oo haddii aan ganacsi ka jirin oo dekad waxba lagala soo gudbay oo cashuur ku sii dheertahay waa garan karnaa walaalayaal gebigan waa wada ciilanahay laakiin ciilka waxaan ka bixi karnaa markaan iskaashano walaalnimo isku qadarino sharafkeena ka shaqeyno ehelnimadina ina ehelnahay aan ogaano waa kala fikir duwannahay laakiin ehelnimadu meesha kama tagin ninku hadduu adiga kaa fikir duwan yahay ama fikrad kale aaminsan yahay ama mucaarad yahay ama muxaafad yahay ahal baa tihiin isku dhiig baa tihiin isku meel baa ka timideen adduunka waxaa ka jirta diversity baa ka jirta waa la wada nool yahay qofna color
discrimination waa aragteen sharciga Yurub ka yaal blackmail waxa loo yaqaano waa aragteen qofku hadduu blackmail qof kale ku sameeyo sharciga ee Yurub ka qabto tribalism sidoo kale waxaan idin sheegayaa inaad dantiina garataan waxa mustaqbalka caruurtiina wax u tari kara inta aad nooshiina wax idin tari kara inaad fahantaan meesha mustaqbalku idinka jiran inaad fahantaan mustaqbalku idinkama jiro inaad aamustaan mustaqbalku idinkama jiro qof kasta u fiirsada qof kasta oo soo halgama oo waqti iyo juhdi iyo dhiig soo baxsha aakhirka taariikhda xusta laakiin haddaad aamusto ood gurigaada gadaal u gasho oo tiraahdeed maxay yahay toolay waan daalay 4 sano iyo bilooyin baan wadaa halgankan mana joojin doono ilaa aan ka arko magaalada Muqdisho iyo koonfurta idil oo nabad lagu maray oo dhisan oo dadkeedu xukumayo oo hadday dagaal noqoto oo hadday siyaasad noqoto oo hadday maxay yahay toolay si kala noqoto aan rabaa in arko waxaan rabaa dadka isla degan ee walaalaha ah oo ka guuray waxa la yiraahdo qabiil inay isu dilaan ayagoo isla dhashay meel iskala yimid laba reer oo reer hebel isla ah oo isku magac lagu sheego ayaa isdilay inta qori isku soo qaataan haadi karaba marka aqligeena fiyow hadaan ka hashano oo garashadeena ka hashano guul kasta waa gaari karnaa gacmaheena ku gaari karnaa dad islaanahay ilaahay baana abuurtay alla na caabudnaa marka waxaan nala kaga baahan yahay intaas inaan ku darno daacadnimo isku tanaasul walaalnimo sharaf is ixtiraam gacaltooyo inaad maxay hayto aan ku darno laakiin haddii aan is yasno haddii aan is culaadino haddii aan is cayno waa garan karnaa waxa ka imaan kara waan garan karnaa wadada ay furayso marka waxaan idinka rabaa walaalahayow dadkaan isku mid maahan qof baa markaad koonfur ka hadlayso waqooyi kala hadlay qof baad markaa bari ka hadlayso hoostaada kala hadlay dadku isku ra'li ma waxa la rabaa marka dadkaas aan isku ra'liga ahayn inaad isku wadi karto isku dul qaadataan dareen mid ah na aad muujisaan haddii aad muujisaan dareen mid ah haddii aad muujisaan maxay kala duunaansho aad muujisaan haddii aad muujisaan isku tanaasul wax wada lahaasho dhulkan inaan leeyihiin aad muujisaan waxa imaanaya barwaaqo iyo bashbash iyo maxay hadla progress umadi ma hormarto ilaa ay maskaxda ka hormarto umadi ma hormarto ilaa ay wax barato tiknoolajiyada bara haddaa hooyo tahay caruurta wax bar haddaad gabar yar tahay wax baro haddaad wiil tahay wax baro haddaad aabba tahay caruurta wax bar mustaqbalku wuxuu ku jiraa inaad dadka aad wax bartaan educated dadku markay noqdaan ay wax soo bartaan akhlaaqna way imaanaysaa because waxa haddaad soo barto waxa la baranayo waxa ka mid ah akhlaaqda sida loo noolaado sida wax loo qabsado sida loo shaqeysto sida maxay yahay toolay dhaqaalayahan loo noqdo sida maxay yahay tol business loo abuuro sida maxay yahay tol horumar lagu gaaro sida nafsadaada loo horumariyo sida dadka loo ixtiraamo sida howlahaasi marka uu soo barto qofku uu ku soo barbaaro aakhirkana waxa imaanaya inuu qofku wada wanaagsan aado hadduu leader noqonayo leader wanaagsan oo noqdo hadduu nabadoon noqonayo nabadoon wanaagsan oo noqdo hadduu qof taqtar noqonayo taqtar wanaagsan oo noqdo haddii uu engineer noqonayo inuu engineer wanaagsan noqdo waxaan rabnaa marka dhammaantiin inaad ku baraarugtaan dhaqdhaqaaq inaan muujino meel kastoo aad joogtaan caalamka sharar la qabto leesu yimaado lees xog wareysto hooyooyinku qayb bay ka yihiin nidaamka la wado campaign baan bilaabaynaa haddii ilaahay raad aan iskugu imaanayno hadday Sweden noqoto haddii Holland noqoto hadday Jarmalka noqoto
haddii alla ku idmo wadamadan intaan ka gaara aniga hadday fiinland noqoto kulamaan bilaabayna haddii ilaahay yiraahdo ka talinta aayaheena iyo mustaqbalkeenaan ka tashanayna marka u diyaar garooba hala sii diyaar garoobo hala sii muujiyo dadnimo hala muujiyo tanaasul hala muujiyo wixiina ku tashta wax aadna soo shaqaysanin maanta cid ku siinaysa malaha haddii aadna tuugsanin oo gacanta horsanin marka aad shaqaysato ood wax qabsato oo dadaasho oo juhdi bixiso baad ka tiraahdaa ood nasataa marka aan dadaal kale leen maadno waxaan idin rajaynayaa barwaaqo nabad iyo caafimaad sida aan u caafimaad qabo inuu ilaahay gabigin qofka xanuunsan ilaahay xanuunka ka dulqaado qofkii dhibaato haysatana ilaahay dhibaatada ka dulqaado qofkii intii muslima anaga iyo intii muslimaba qofkii muraad lana in ilaahay muraadkiisu sahlo I hope inaad fahanteen aad idin salaamaya insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.